wadaadkeenu wuxuu leeyahay dagaalka hala joojiyo kii xagaa ka soo jeeda wuxuu leeyahay wuu soo cabaynaya suudaankeenu wuxuu dagaalka hala joojiyo kii xagaasa sahaydii uu soo wadaa ya de marka si dagaal aan shacbi wadana sidoo adkaada iyo diblomaasi labadii wada naga horeeya xagii abaabulkii iyo xagii diblomaasiga wada naga horeeya inagii victimska baa inagii in wax victims kaleynay inta yadan in leeg oo dhigooda ay garowe looga yimaadeen oo ay ka hadlayeen intaan maanta ka hadalay oo ah in ummadda nabadgeliyo iyo isfaham madax iyo midjaba la isugu soo dhaweeyo oo aanu isla qaadanay ayay jawaabideedii tan ahayd nala casuumeen looguna yeedheen oo aan u tagnay runtii si gobonimo leh oo aad u qiimo leh ayay madax dhaqameedkii iyo culimadii iyo waxgaradkii iyo si muxuu ahaa ganacsatadiiba markii hore sidee ku bilowdeen wadahadalladan dhinaca nabadda ah waxay ku bilowdeen iyagaa la waraysay ilaa iyagaa soconaye iyagaanu waraysan waxaad la soconaysee sheegaan midi waa gartay marka mowqifkiinan muxuu yahay idinka haddii aad tihiin salaadiintii iyo cuqaashii puntland annagu maamulka waa ka warqabnay inuusan ogolayn in laga wada hadlo hadal yacni waan ilaa ay ka kacaan oo ka guuraan oo weliba degaamadoodii ku dhexlaan oo ay dhaafaan inta xuduudda puntland meel la yidhahdo lerida ilaa ay tagaan annagu maamulka iyo shacabkaba inaan dadka wacyigelino oo lagu wacyigeliyo in la kala guro soomaalinimada wada dhalashada istirnacaybka laga fogaado oo khilaafka dowladda iyo siyaasiyiinta ka dhexeeyana loo daayo cidda ay khusayso waxaa kaloo aanu ku heshiinay in lagu wargeliyo oo laga wada shaqeeyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee uu hogaaminayo mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha ka yahay iyo madaxweynaha puntland maamul goboleedka puntland uu ka yahay wakiilka madaxweynaha ka yahay cabdiweli oo loo sheego oo aanu ka dhaadhicino oo aanu ula tagno in la iswadaarsado maxaabiis wixii la kala hayey waxaanu ka wada hadalnay waqtigaas waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa inaynu arrinta ciidamada ishor fadhiya oo tukarraq isku hor fadhiya inaynu wax iska nidhaahno ma garatay waa gartay marka adinkuna maxaad ugu jawaabteen waxaanu ugu jawaabnay arrintaa iyada ah haddii dadka xiran oo la kala qabsado in la isu sii daynayo waa dhaqan soomaaliyeed oo waa arrin aada soo dhaweyn leh wax kale oo laga wada hadli karo inta ciidankaasi tukarraq fadhiyo ciidanka somalilan waxaa halkan go-aan ka ah shacab iyo xukuumada ciidanka somalilan intuu tukarraq fadhiyo wax laga wada hadli karaa inayan jirin oo kale waa garta marka iyaguna maxay yidhaahdeen ma aqbaleen soo jeedinta aad soo jeediseen keliya waxay yidhaahdeen annagu hadde wax kaloo aanu oran karno laakiin telefoonada aan korqoranno weliilku ka dayn bal waan daynaynaa warkiina waa la noqonaynaa bay yidhaahdeen iyo dagaalka uu ka wado puntland iyo somalilan beesha caalamka waa u sheegnay dabcan waa gudbinaynaa warka laakiin beesha caalamku muuse ma kicinayso mana kicin karto waxaa kicinaya waxa weeye inay dadka dhulka iska leh deegaan kale u dhashay ilaahay ku beeray iyo puntlandba inay muuse biixi iyagu ay runta u sheegaan oo kiciyaan unbay muuse biixi wax ku ogaanayaan waxna ku fahmayaan laakiin hadal meeshaan laga yidhi u malayn mayo de inuu isagu muuse biixi wax ku qaadanayo laakiin dad runta u sheegi doonta insha allah dantaaba khasbi doonta inuu fahmo inaan dagaal inta dhul ugu qabsado ood ku joogto ood ku nabad gasho aadan kuwaanan kuna baraaraynin marka waxaa weeye xabadna namaysan karin ma jiro isagaa soo duula wuxuu ka helu leeyahay waa maasinta